shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo markii ugu horeysay lagu qabtay Soomaaliya ayaa waxa furay maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. shirka ayaa ahmiyadiisu ahayd xoojinta taageerada Soomaaliya in lagu soo bandhigo horumarka dawladda Soomaaliya ay ka samaysay soo kabashada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo la dagaalanka argagixisada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo shirka ka jeediyay furitaankiisa khudbad kooban ayaa soo bandhigay horumarka kala duwan ee dawladda Soomaaliya ay samaysay muddadii sanadkii barka ahayd, horumarinta hanaanka maamulka maaliyadda, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda iyo higsiga doorashooyinka 2020 iyo horumarka adeegyada bulshada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xusay in fursad weyn ay Soomaaliya u tahay in shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka lagu qabto Muqdisho. It is my hope that this meeting will be the tipping point and open doors for Somalia, solidifying our return to the League of Nations. Soomaaliya sanado badan ayaa loo arkayay xubin oo ay si ka tirsan oo culays ku ah, hase ahaatee maanta waxaan taaganahay marxalad la maalgashan karo, marxalad khatar lagu qaadan karo Soomaaliya sheekadeedii hore wax kaga bedelan. waxaan rajaynayaa in kulankani uu keeno aragti Soomaaliya ee albaabada ugu furayso, isla markaana Soomaaliya ay dib ugu laabato dhammaan ururada caalamiga ah oo ay xubinta firfircoon ka ahaan jirtay. tallaabooyinkii aan qaadnay sanad iyo bar ka hor ayaa keenay arrimahan, waxaana naga go'an inaan sii wadno waddada horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya. waxaana idinku bogaadinaynaa sida aad noogu garab istaagteen dadaaladaas, isla markaana aad ugu booriseen kuwa kale in ay Soomaaliya ku barbar istaagaan safarka inta ka harsan. dowladda Qatar oo ashir gudoonka ururka iyo kaaliyaha xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka oo si wada jir uga hadlay shirka ayaa qiray in Soomaaliya ay samaysay horumar weyn, isla markaana ururka ay ka go'an tahay inay siiso taageero dhab ah oo ku jihaysan higsiga iyo qorshaha horumarinta dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya dadaal dheer ku bixinaysa sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay, waxauna dhammaan dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka ka codsaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya in gacan laga siiyo Soomaaliya, isla markaana ay hoggaan u noqdaan barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya iyaguna ay iska bilaabaan. In the last year and a half, we've embarked on a serious economic agenda with the aim of achieving a debt relief from the international creditors. sanad iyo bar ka hor waxaan qaadnay tallaabooyin aan wax kaga bedelayno dhaqaalaha waddanka oo aan ugu gol leenahay si deymaha ay uga cafiyaan beesha caalamka Soomaaliya. waxaana ururka iskaashiga Islaamka aan ka doonaynaa inay qaataan doorka deyn cafiska ah, ayna ku booriyaan annaga oo ayaga naga wakiil ah kuwa kale in Soomaaliya ay ka cafiyaan deymaha. inkastoo aan weli mahad balaanan idinkaga hayno sida cad ama sidaa Soomaaliya u caawiseen, haddana waxaan doorbidaynaa in ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya lagu samaysto, isla markaana la soo jiito. waxaan ugu baahannahay ururka OIC inay ka faa'iidaystaan maalgashiga ballaaran ee Soomaaliya haatan ka jira. taageeradiin ayaana wax ka bedeli karta sida hadda ay Soomaaliya tahay, isla markaana soo jiidan karta maalgashadayaal ballaaran iyo ganacsiga ku dhisan saaxiibtinimada iyo isxulafaysiga amniga. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.